halkan waxaad nagala socotaan warbaahinta GMN ee laanteeda af Soomaaliga. Itoobiya waxay dhistay awoodda daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyo ka hortagga cudurrada oo tusaale ugu noqon karto dalalka Afrika. Hay'adda Caafimaadka Adduunka WHO ayaa sheegtay in Itoobiya ay dhistay awood xooggan oo ay tusaale ugu noqoto dalalka Afrika, iyadoo diiradda saaraysa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, ka hortagga cudurrada iyo ka jawaab celinta degdega ah ee masiibooyinka. Waxaa sidoo kale ugu baaqday hay'adda WHO waddamada kale ee Afrika in diiradda ay saaraan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, dhisidda awoodda shaqaalaha iyo maalgashiga waara ee caafimaadka si loo dhiso nidaamyada caafimaadka ee adkeysiga leh. Professor Francis Kasolo, wakiilka WHO ee Itoobiya ee Midowga Afrika iyo Guddiga Dhaqaalaha ee Qaramada Midoobay ee Afrika, ayaa sheegay dadaallada socda ee Itoobiya ay qaybta caafimaadka in ay muujinayso in waddanku uu gacan weyn ka geystay adduunka dhanka ilaalinta caafimaadka. Wuxuuna sidoo kale xusay in natiijooyinka laga gaaray inta dhimashada hooyada iyo dhallaanka, iyada oo loo marayo barnaamijyada kordhinta caafimaadka, ay tusaale u noqon doonaan waddamada kale ee Afrika. Wuxuu sheegay in hay'adda caafimaadka adduunka ay bilowday geedi socodka lagu aqoonsanayo Itoobiya in ay tahay xarun heer sare oo ay xoojisa daryeelka caafimaadka ee aasaasiga ah. Waxaa kale oo uu sheegay in Machadka Caafimaadka Dadweynaha ee Itoobiya uu ka mid yahay hay'adaha ugu xooggan ee caafimaadka dadweynaha ee Afrika. Marka loo eego awoodda shaybaarka, la socodka cudurrada dijitaalka ah, dhisidda awoodda shaqaalaha iyo ka jawaabista masiibooyinka, wuxuuna sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu sii wadi doono in uu diiradda saaro ka hortagga cudurrada. Marka laga reebo adeegyada caafimaadka, waxaa kale oo uu xusay in horumarinta ilaalinta deegaanka iyo adeegyada nadaafadda ay muhiim u yihiin dhismaha bulsho caafimaad qabta. Wuxuuna tilmaamay in barnaamijyada horumarinta raadreebka cagaaran, horumarinta waddooyinka Itoobiya aysan kaliya qurxin muuqaalka magaalooyinka aan ahayn, laakiin sidoo kale gacan weyn ka geysanayaan horumarinta caafimaadka dadweynaha. Wuxuuna sheegay in sirdoonka macmalka ah iyo caafimaadka dijitaalka ah ay door muhiim ah ka ciyaarayaan saadaalinta cudurrada, qorsheynta caafimaadka iyo bixinta adeegga. Waxaa kale oo uu tilmaamay in ururka caafimaadka adduunka uu la shaqayn doono dowladda Itoobiya si loo xoojiyo dadaallada caafimaadka dijitaalka ah ee dalka. Wuxuuna kula taliyay in dalalka Afrika ay diiradda saaraan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah, dhisidda awoodda shaqaalaha, nidaamyada gudbinta ee isku dhafan iyo maalgashiga caafimaadka ee waara si loo dhiso nidaamyada caafimaadka ee adkeysiga leh. Itoobiya waxay hubin ka ahayd aasaasiyaasha ururka caafimaadka adduunka tan iyo markii 1947, waxayna gacan ka geysatay dejinta siyaasadaha caafimaadka adduunka in ka badan 79 sano. Turkiga ayaa si adag u cambaareeyay weerarka uu wasiirka xagjirka ah ee amniga Israa'iil uu ku qaaday masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Wasiirka amniga ee Israa'iil oo wata in ka badan 3,200 oo Israa'iiliyiin ah ayaa xoog ku galay barxadda masaajidka Al-Aqsa, iyadoo xusayay munaasabadda Yahuudeed ee loo yaqaano Tisha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga oo bayaan soo saartay ayaa sheegtay in ay si adag u cambaareynayso duulaanka xoogga ah ee wasiirka xagjirka ah ee amniga Israa'iil uu ku galay masaajidka Al-Aqsa, isagoo ay ilaalinayaan ciidanka ammaanka Israa'iil. Turkigu wuxuu sheegay inaan la aqbali karin falalkan ee jebinaya sharciga goobaha barakeysan ee Muslimiinta, waxayna Ankara ugu baaqday beesha caalamka in la qaado tallaabo lagu joojinayo tallaabooyinkan daandaansiga ah ee uu dabada ka riixayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil.
sidoo kale Sacuudiga iyo dalalka kale ee Islaam ayaa si adag u cambaareeyay tallaabooyinkan sii kordhaya ee Israa'iil ay kula kacayso masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa. diyaaradaha istiraatiijiga ah ee fuliya duqeymaha culus ee B1 loo yaqaano ee ciidanka cirka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka kacay saldhigyo militari ah oo ku yaalaan Ingiriiska si ay uga qayb qaataan howlgallada militariga ah ee ka dhanka ah ee Iiraan. Iiraanna waxay ku hanjabtay in saldhigyada Ingiriiska ah ee martigelinaya diyaaradahaasi ay hadda yihiin bartilmaameed sharci ah, halka ciidanka Ingiriiska ay sheegeen in ay diyaar u yihiin in dalkooda ka difaacaan weerar kasta. Ciidanka Mareykanka ayaa habeenkii 12aad oo xidhiidh ah duqeymo la beegsanaya Iiraan xilli Trump uu ka digay in ay bartilmaameedsan karaan kaabayaasha rayidka ah haddii Iiraan ay sii wado jawaabada ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ah ee Mareykanka.